Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa mar kale iyo barnaamijkeena imtixaanaha ahaa ee aanu ka sameynay silsiladii caanka ahayd ee Soomaaliyeed ee Guba, taasoo aanu go'aansanay inaanu dib u soo qorno iyadoo maqal iyo qoraal labadaba ah, gabaygabayna inay kusoo gudbino. Haddaba ujeedada ugu muhiimsan ee aan ka leenahay inaanu dib u soo noolayno una soo qorno silsiladan caanka ee Guba ayaa ah in la fahmo dhoolatuska afka Soomaaliga iyo ereyadiisa hodanka ah iyo gabayaashii kala duwanaa ee silsilada ka qayb galay iyo meelaha ay kala joogeen iyo cidday kala ahaayeen iyo deegaanada ay ku kala socotay. Haddaba maanta waxaan halkan kusoo gudbinaynaa innagoo weliba marayna qaybihii ugu dambeeyey ee silsilada caanka ahayd ee Guba, gabaygii 22aad ee silsilada caanka ee Guba, kaasoo uu noo tirinayo markiisii saddexaadna uu kusoo laabtay Maxamed Cumar Dage oo ogaadeen ahaa. Maxamed oo sida gabayga ka muuqataba u jawaabaya nimankii dhulbahante, khaasatan ninkii gabaygii ugu dambeeyey ama gabaygii 21aad lahaa ee Samatar Baxnaan, ayaa wuxuu sheegayaa raggii laga dilay oo maqaawiirta ahaa oo nabadoonnada ahaa inaysan aarid u noqon karin niman geel jira ah oo uu Samatar Baxnaan ku faanay in la laayay. Haddaba Maxamed Cumar Dage ayaa sheegaya in gabaygiisii ama gabayadiisii gabaygan ka horreeyey oo uu gal lahaa inuu nimanka dhulbahanti ku dhiirigeliyo inay aarsadaan inay asagii eedda saareen. Haddaba gabaygii 22aad ee silsilada caanka ee Guba oo uu noo tirinayo Maxamed Cumar Dage oo ogaadeen ahaa wuxuu ku bilaabay sida tan: mudaakarada geerar hadday mucurta kuu goyso, marxalkaad u sheegtiyo haddii marinkii loo diido, kol haddaad masaladaa tidhaa loo miyirin waayo, adoo maray lilaahida haddii eexo lagu moodo, miyirdiin hadduu kugu qabsado maansadaa tirisay, murti iyo martabad loo xishiyo muuna laga waaye, murdud reebe gabaygan kol hore uunka maqashiiyey, een midhaha daarood dhex dhigay mucurtiduu reebay, ee muuse nawgiyo ahaa hiil umara xoorka, een muqadimiintii la jaray ugu muraaqooday, gabaygan hartiga maaxiyiyo mudug raggii joogay, gabaygan u maakmay in loo mudo masaalkooda, martaan xidhannay habaryoonistii muranku noo yiilay, niman madaxeeweyn ahoo muhindisoonaya, anigoo macbuud bow hayee malag la doonaya, gabaygan magaalada lahaa meyd ha laga qaado, abtir lagama maydhiyo nimaad mini wadaagtaane, ficil waa musiibee intaan gibil madoobaaday, lagu maadsay goortaan lahaa waa la murugoone, gabaygan manaabada lahaa maqan ku raadcayso, raggii aaro looguma maqnoo waaba loo marage, malahay khasaariyaye sideen ugu muraad seegay, inay midigta qaadaan la waa miidha habar waaye, milgihii shirshooraan sugayn muuna duulgobahe, mulkigii garaad faaraxow idinka maarowye, dadku magaca wou wada jiray midhaha daaroode, jifadaase lala maadhi jiray mayd la oloshaaye, wax maqanihii lagala baxay maanta reer hagare, inuu miilo gabay reer camay maqal ogaadeene, marwo jabe markii lagu jariyo murankii qoolaabe, milga xumo bahdahabaan lahaa midhicsan maayaane, maxamuud guray iyo bilow malihii beenowye, maraweynta reer faaraxow dayse murankiiye, mayalqabad ka dhimay reer cigaal meeluu joogaba reer maxamed muuniyo ka samir magac wanaagiiye, haweenkuba martoo laga furay mahad ku sheegtaane, macbuudkii abuuriya sidaa maaliga u galaye, wax la mid ah qabiil magag ah oo miidha qaayibaye, laga maarsay laba muuse iyo muhasho reer cawle, warsangeli u mari yaan hartiga gabalki moogaane, majeerteen u sheeg xaajadaa waa mashaqo weyne, kuwii ficilka maamuli ogaa wada muhiibsiiya, maxamuud saleebaan u mari madaxyaweyntiisa, bal inay dhabliga meeriyaan
aad u maqashiiya ayuu yidhi Maxamed Cumar Dage oo ogaadeen ahaa. Haddaba waxaa maanta intaas noogu eg gabaygii 22aad ee silsiladda caanka ah ee Guba, kaasoo uu noo marinayay Maxamed Cumar Dage oo ogaadeen ahaa, kaasoo uu ugu jawaabayay si gaara nimankii dhulbahante, si guudna nimankii harti oo dhan. Haddaba annagoo marayna qaybihii ugu dambeeyey ee silsiladda caanka ah ee Guba ayaa waxaanu ku xujin doonaa gabayga 23aad. fadlan haddaa channelka cusub tahay oo ay tahay markii koowaad aad soo booqato, subscribe saar. haddaa horey ugu jidheen oo fiidiyowga share garee, sidoo kalena like saar, commentigana nagula wadaag afkaartiina iyo waxyaalaha aad jeceshiin in lagu soo daro.